بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu ku dhex jirnaa oo bilow noo ah oo nu soo qaadanay casharkii koowaad tafsiirka quraanka kariimka ah oo nu maartay bilowgiisa aanu joogno. waxaan ku bilaabanay fadaa'ilul quraanil kariim iyo tilaawadiisa iyo tacallumkiisa iyo tacliimtiisa inaanu maartay qayb aynu ka soo qaadano. marka wali waxaynu ku dhex jirnaa fadaa'isha quraanka kariimka ahay aan uga hadlaynay aayadaha quraanka iyo axaadiista rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaanu maartay soo qaadanay. halkaana waxaan nooga bilaabanaya casharkeeni labaad oo maartay tafsiirka quraanka kariimka ah oo markaasi waxa weeye aanu ku soo qaadanayno quraankii fadaa'ishiisi qayba kamid aanu wali annagoo ku dhex jirna aynu soo qaadan doono. quraanka ilaahay waa tawdahay Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. waa tawdahay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankan yahdi lillati hiya aqwam dariiqada toosan ayuu ku hanuuninayaa. quraanku waxa weeye wadada toosan oo ilaahay raaliga uu ka yahay ayuu umada ku hanuunaya. haddana waxa uu bishaareynayaa dadka muuminiinta oo acmaasha saalixaadka sameeyay inay ajir weyn iska leeyihiin. kuwa markaasi aan rumeeyeen quraankana cadaab ayaan u deeno ilaahay. wa anna alladheena la yu'minuna wa ilaahi subhanahu wa ta'ala bil aakhirati a'tadna lahum 'adaban alima. dadka aakhirada aan rumeeyeen waa dadka kitaabka quraanka aan rumeeyeen cadaab aliim ay ayaguna iska leeyihiin. taas ayuu markaas uu ka khabraya. marka hadda kitaabka quraanka حديث فرب بدنا كسو أرور حديث هذا كمده حديث أو إمام مسلم أو صاري ولا جوري صحابي الجليل سيدنا عمر بن الخطاب أيا وحده أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أسو روايات كلانا وحان كسو قاعدنا 10 كيلو كوبات. وحده سيدنا عمر بن الخطاب أما دانو معناها مركي لا تخفيف بمعنى ألاوي ولتنبيه براروغي ودقاها تاغي إن نبيكم صلى الله عليه وسلم النبي نوضه سيدنا عمر قال وحوري إن الله تعالى إلهي كرهي يرفع بهذا الكتاب أقواما. كتاب كان أو كانه قرآن وحو كرأو دقايا ummada ayuu kor ugu dhigayaa. ummadahaas kor loogu dhigayo yihiin markii la yiraahdo waxa weeye al-aamiliina bihi weeye dadka kitaabkaas quraanka ku amal fala. ilaahi kitaabka kor ayuu ugu dhigayaa. dadku waxay sharaf ku yeelan karaan oo darajo iyo fadaa'il ay ku gaari karaan adduun iyo aakhira suuban kitaabkaas ilaahi markay qabsadaan oo kitaabka asaga kor u qaadaan. kitaabka markaad kor u qaado ayaa ilaahi kor ku qaadaya. kitaabka ilaahay markaad rafciso oo qadarkiisa aad weynayso ayaa adna ilaahay subhanahu wa ta'ala qadarkaaga ee maqaamka kor u qaadaya. kitaabka ilaahay hadaad dhulka dhigto oo hoos u dhigtane ilaahay adigana hoos ayuu ku dhigayaa. sida lagu sii wadana naar ayaa lagu gelinayaa oo asfala saafiliin ayaa markaas tagaysa. marka kitaabkan ummada ayaa ilaahay kor ugu dhigaa rasuulku kaleey salaatu wasalaam ويضع به آخرين وماذا كلنا إلهي هو صوء دقيا. ضدك أبا لبضاس قيبوضة وحاوية ضدك إلهي كتاب كان درجة ويلايو ومقام كود كوينينايو وضدك كتاب كقبصدي أو كعمل فليو هدي رسولك قاتي ونبي عليه الصلاة والسلام دردارن كيس قاتي كتابك إلهي قاتي ضدكاس أيا كورلو دقيا. ضد وحي نقونيان قدر كود ويهي laga heebaystay noqonayaan. heebadii islaamka way luntay
waxa lumiyana waxa weeye kitaabki ilaahay baa laga tagay wixii haybada lagu yeela lahay sharafta lagu yeela lahay qofka wanaagsan oo kitaabka ilaahay qabsado kor u dhiga oo kitaabka ilaahay ku fara adayga haybad uu yeelanaya haybadaas oo min Allah ka iimaanaysa cid kasaaba ka haybaysanaysa hatta dadka fujaarta ka haybaysanaya oo hatta uu arkaayo inuu darajo iyo maqaam uu leeyahay oo hayba ka saaranta kitaabka ilaahay haddaan weynayno oo nu maaratay ku dhigno oo nu haybadaas ilaahay subhanahu wa ta'ala u yeelay aanu inta fahamkeena aanu qaadano ilaahay subhanahu wa ta'ala korowno dhigaya ilaa hadda waa ta nabigeenu leeyahay alayhi salaam kitaabkan ilaahay ummada ayuu kor u dhigaya wayadlu bihi aakharina ummada kalena ilaahay hoos ayuu dhigaya ilaahay dulli ayuu ku ridaya dadka kitaabkaas aan kor u qaadin dad dulaysanay noqonaya adduunyadoodu ay khariban tahay noqonaya aakhiradina ay ka sii daranta meel ay ku fiican yihiin aysan jirin adduunya aakhira beel ayaa ku dhacaya kitaabkaas dadkan kor u qaadin adduunya aakhira beel baa ku dhacaya maxaa yeelay xugun kasta isaga ayuu ku jiraa xugun kasta asaga ayaa laga helaya ilaahay dastuurki koonkan uu keenay isaga weeye dastuur kale oo la garab dhigaya ma jiro asaga ayaa maaratay dastuurki ilaahay samadaas ka keenay koonkan Allah abuuray masaalixdiisa ilaahay isaga ayaa yaqaan dadka wixii u dana Allah yaqaan subhanahu wa ta'ala hadii aan la rumaysnayn kitaabkane waxyaabo kale la iska dhoobto markaasi ayaa la isleeyahay dan ha lagu gaaro laakiin waxa la ogaadaa meesha danta in laga gaaro la doonayo oo adduunyadan in Allah iska leeyahay idowsan Allah subhanahu wa ta'ala raali ka ahayn waxba inaysan ka gaarin falillahi al-aakhiratu wal-uula wa tawda ilaahi subhanahu wa ta'ala adduunya aakhiraba ilaahi baa iska leh waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka ogolayna cid ka qaba karta ma jirto hadii kufaarta waxyaabo istidraaga la siiyay ilaahay wuxuu dhahay sanasadrijuhum min haythu la ya'lamun waxyaabahaas istidraaga ah oo lagu sabaansabayo dabinka loogu qoolayo qofkii u arka inay wax yihiin waxa weeye qof lunsanoon diinta aqoonin oo diinta ka been sheegaya amaan diin laaway how noqonaya dhibaato ayay ku jiraan adduunyadana dhibaato ay ku jiraan intay nool yihiin ayayna markaasay jahannama moog yihiin iyo naarta ilaahay marka kitaabku waa sidaas oo waxa Sayyid Umar u soo jeediyay dadkaas oo ku baraarujinaya in nabigeenu uu dhahay alayhi salaam ilaahay kitaabkan dad ayuu kor ugu dhigaya dadna hoos ugu dhigaya macnuhu waa sidaas waxa weeye dadna kor loogu qaadaya dadna hoos loogu dhigaya arintaas ay taagan tahay way marka sidaas weeyo quraanku saas ayuu maaratay wuxuu u yahay kitaabka ilaahay oo maaratay isaga uu maaratay la doonayo in la qabsado ahadiisa kala hadaan soo qaadano xadiis isaga maaratay Imam al-Bukhari oo soo bixiyay oo Sahih al-Bukhari ku yaala waxa laga wariyay saxaabiga jaliilka Sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu wuxuu nabiga ka wariyay rasuulka wuxuu dhahay khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama quraanka waxa weeye barashadiisa iyo baridiisa ayadana maxaa ku sugan rasuulka wuxuu dhahay alayhi salaam midka idinku khayrka badana waxa weeye hadaatiin ummatul Muhammad qofka quraanka bartay dadkana baraaya dadka qofka quraanka bartay dadkana baraaya quraanka marka la baranayo waxa la rabaa ilaahay daraadiisa inaad u barato inaad ku intifaacdo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu koriyo inaad u barato hadaad sabi aatayne hada sabigu waxa weeye quraanki lafdigiisa ayuu qabanaya quraanki taaliimtiisina way u sii dhiman tahay barashada quraanku wax dhow ma ahano lafdiga hadaad qabato waliba markaasi waxa weeye dadkeena cajamta kuma sii jiraano maraaxil fara badan ina marna ayaa la doonayaa oo markii hore lafdiga qabano ka bacdi macnihi aanu raadino markaasna waxa weeye aan nahay dad ilaahay daraadiisa waxaan dar alla ahayn sidoodaba waxa ma tarayaan waxaan dar alla ahayn waxay tarayaan ma jirto maxaa yeelay shirki bay noqonaysaa ilaahay qeyrkiisa oo amal falay noqonaysaa hadhow qiyaamo markii la tago waxa lagu leeyahay qofkaad wax u sameeyaysay oo daraadiisa aad waxa istutusayso ha ka maqla ha ka dhageysta ay kugu jirtay waa kaas doo waxay aada lagu leeyahay daac kaleys war amalka ilaahay ikhlaas la sameey amalka ilaahay aan u khalisno wax yaroon ilaahay u khalisno ayaa waxa weeye waxaan la soo koobi karin oo malaayiin ama balaayiin ah
oon dar ilaahay aanan ahaynin ayaa ka khayr badan. waxaa alla loola jeedo sidoodaba ikhlaas lamaba yaraadaanba, wuxuu haddayba ikhlaas ay leeyihiin oo dar ilaahay uu leeyahay, ilaahay fadligiisa asaga addoomankiisa wax ku siinaya, laakiin inta aad la imaanayso dar allaha ka ahaato, intaasaa la rabaa. ilaahay qof qalbigiisa uu fiirinayaa, qalbiga qofka ayaa alla fiirinayaa, wax kaloo la fiirinayo ma jirto. insaanka waxa weeye maxalu nadarillaahi, waxa weeye qofka mu'minka qalbigiisa waay. qalbiga hadduu ka khariban yahay oo waxaan ula jeedo ama qaral adduunyo waxyaabaha laga sheego ee maqaam yeelo sheekh fulaan hal lagu yiraahdo, waxaas waxa weeye haday ku jirto waxba ka heli maayo ilaahay agtiisa, waana ku khasaaraya. khasira dunya wal aakhirah, dhalika wal khusran mubin way. addunya aakhirana waa khasaaraya. rasuulkeenu marka wuxuu dhahay alayhi salaatu wasalaam, khayrukum awda khayrukum, war inaad khayriyadaas aad gasho isku dayhe, man ta'allama al-qur'ana, quraanka midka bartay, wa 'allamahu dadkana barbaraayo. quraankii waxa weeye ilaahay intuu adduunkan keenay waxa ugu nacfi badan weeye. marka hadee nacfigaas ayaa la rabaa inuu san adiga kugu koobnaanin, oo markaas ilaahay addoomankiisa inaan anfacdo ayaa la doonayaa. ho ahabul ibad ila allah asaas ku noqoto. marka ilaahay addoomankiisa midka ugu jecel yahay waa midka addoomankiisa anfaca. waxa adiga kugu kooban iyo waxa adiga markaas ka baxayo ilaahay addoomankiisu ku nafcanayaan waa kala ajir badan yihiin. sida hadda masalan ba hadda cilmiga barashadiisu ay uga khayr badan tahay cibaadada kaleentood. qofku hadii waxa weeye cilmiga oo baranayo oo culumta islaamka oo baranayo, hatta waxa weeye faraaisha oo san dhaafaynin, wuxuu ka khayr badan yahay qof habeenkina salaatu leyl u taagan, maalintina sooman, quraan akhraaya, wax kasta sameeyay oo umrigiisa intaas ku jira. waxa ka khayr badan midka cilmiga baraa ka khayr badan. maxaa yeelay cilmigu waxa weeye wuxuu tagayaa marka dambo inuu qofka uu nacfigiisa oo asaga uu leeyahay oo ka gudbo uu gudbo markaas inta kale umada. marka wax adiga kugu kooban waxaad umada ku anfacdaa ka khayr badan. waxay rasuulkeena la weydiiyay alayhi salaatu wasalaam, ya rasuulallah, man ahabul ibadi ila allah, ilaahay addoomankiisa alla xaqiisa yaa loo jacayl badan. rasuulkeena wuxuu dhahay alayhi salaatu wasalaam, ahabul ibadi ila allah anfa'uhum li ibadi. xadiis saxiix waay. addoomanka ilaahay midka alla xaqiisa loo jacayl badan yahay waa midka ilaahay addoomankiisa anfaca. marka hadda qofka quraanka bartay dadkana baraaya, ahabul ibad ila allah way, ilaahay addoomankiisa loo jecel yahay. waxa weeye marka khayrun naas saasoo ku noqday. maxaa yeelay waxa uu khayrun naas ku yahay waxa uu anfacay ilaahay addoomankiisa uu anfacay. haddaad macallin quraan tahay, ikhlaasna ay ka tahay, oona adduunya qararkiis ka ahayn, khayr ahad noqonaysa khayrun naas aad noqonaysa. waxayse ku xiran tahay arintaasu sidaad kitaabka ilaahay ugu camal fasho iyo sida niyadaadu ay tahay. waxyaabo akhraad adduunya oo nafci lahayn haday wuxuu ay yihiin khasaaro way, waxna ka heli maayo qofku waxaan ilaahay u qorin arki maayo. wixii maqaamka iyo darajadiina waa ka dhumaaya. marka qof walba qalbigiisa rabbiha ku xirto ana u jeheeyo ilaahay diintiisana ama kitaabkan quraankaana Allah subhanahu wa ta'ala inuu ka raali noqdo kaliya maaratay amalkaaga iyo adeegaaga ha noqdo. addoomanka ilaahayna saasa loogu adeegaa la rabaa. si markaas waxa weeye khayrun naas adu noqoto, ahabul ibad adu noqoto. maxaa yeelay nabigu markuu dhahay alayhi salaatu wasalaam, khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. man ta'allama al-qur'ana laguma ekayn. macnaha shayga adiga haduu kugu eg yahay waa laga khayr badan yahay. wa 'allamahu ayuu dhahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam oo dadka dana barbaraay. haddaad qof la quraanka mujarradkiisa aad barayso, haddaad maca tafsiirka quraanka culumtiisa dadka aad barayso, quraanka markaas dadka barayso, aduguna aad soo baratay, waxaad noqonaysaa khayrun naas waay. koonkan wixii jooga qofka ugu khayrka badan aad noqonaysaa. wax sahlan maahan arintaas, darajo sahlan ma, howl sahlan ma. waa in markaas waxa weeye arintaas lagu dadaalo idan cidna ilaahay mooyaane cid kale wax looga rabin. xadiiskaas marka halkaas daan ku dhaafno
قفك قرآنك حافظك قرآنك ولا برتا قفك حافظك هو كلامك إلهي حفظية قرآن كان ولا حفظكرا على الرسول كان عليه إلهي آيات القرآن كابو حياد ولقد يسر القرآن لذكري فمن مدكرنا الإله وأسكو تجدونا قرآنك وأن سهلني أيها الإلهي سبحانه وتعالى للتذكر والحفظ إن لغوا نقاته لنا حفظيه أيان أسهلنا الإلهي فهل من مدكرين مجرى مد قرآنك حفظاية أو كوا نقاضنية قرآنك داد حفظ سنة إن أتكوا نقاطا للربا أو قرآنك أتكو عمل فشو وهوي هذا للحفظ والتذكر على الربا قرآنك وحي الله أسهل وحاوي إن لقبرته أو لحفظيه لغنا ونقاطه قرآنك وحي أشيغايو لراعه أيا لوبهاي لكن حفظ مجرد كيسة أو مركز تذكر عن لهين وحو فائده ليا مجر مركز هداد قرآنك حافظ أتكون نغطه وحي كان يسو أمنا عائشة حديث لقوريي أيا جراء متفق عليه وحديث الصحيحين أمنا عائشة وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رسول كان وحوده عليه الصلاة والسلام قرآن كهذا السيد اللي يسكو بورها فيري برشدي سوى اللي يسكو بورهنا يا إن لحفظيه اللي يسكو بورهنا يا إن لو عمل فلو اللي يسكو بورهنا يا وحكستو خيرا أساقا سيكو دحجران وحكستو خيرا كلام كاس إلهي كو دحجران مركا هذا كلامك إلهي خيرك كو دحجران آنو كلا صوب بحنو سان أخيرونه وعود رسولك عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن قرآن كمتك كو أقون تبضنه أو قرآن كحافظك كو ماهر وحوي الحافظ وي مركز قرآن كمتك حافظك أو كرك كيقان مع السفرة الكرام البررة وحو أهانا يا ملائكة ليرادو سفرة الكرام البررة ليرا سفير يالك كراميسا باريالك ملائكة وحوي مركز رؤساء الملائكة وي وعود درجة مركزي وتوازن ولا سمينا يا ملائكة سواوين سيدا مارت يا جبرائيل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ملائكة سواوين ملائكة حملة العرش دي إلهي رواك تقدوناه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم هل كاسموا تقدوناه دي إلهي رميلك عليه ملائكة سواوين أيو مركز ومعي غوضا نقونا معناه وحوي الدرجة ذا أيا لو يليا وهو كجار محيتاي قرآنك إلهي أيو حفظي قرآنك إلهي مركات حفظيسه إن الدلالة كوكيني كرتا قفك ضدك واكل فهم بدنيها قف بالبفهم ديسة أنت اللي أكتها الدود دلالو قرآنك واحد ذكره قرآنك الله ما حفظ ذكر إيه وحص مجران معاي الإله قرآنك وحوده ولقد يسرنا القرآن لذكر فالمن مذكرين قرآنك وانو سهلنا للحفظ والتذكر مركا وحوي قرآنك سيدا صحي قفك وحوي كلامك إلهي أيو جهد كبحيي وقت أيو سيي زمن كيسا أيو مركا سو حوي قرآنك إلهي أسيي هذا مركا وهير كاس قالوا كلامك إلهي حافظ أو كن غضي إلهي سبحانه وتعالى أمال كيسا وهو كدغي إنه جبرائيل يا ميكائيل يا إسرافيل إيو ملائكة واوين ملك الموت إيو حملة العرش إيو ملائكة أسمارتيا إنه مارتيا معقود أو هذا أو درجة ذا لقارسيو مركب ماهرك الحاذق الكامل الحفظ وي قفك قرآن يا لا أحفظ سنوي أو سقر حنو أخرنا مع سفرة الكرام البررة أيها رسولك عليه الصلاة والسلام قرآن كمركب حفظ جيس هلك سوق قارسينا يا قرآن كمركب إنا حفظ الصه درجة ساتكو قاريسة قف حافظة هي قف كانت اسكمد ماهن محايا لنبو قدال وحو كدهي والذي يقرأ القرآن ودهي متك قرآن كأخرنا ويتعتع فيه وقفقفاية وهو عليه شاق قرآن كنو أو ربايو له أجراني أصنع مال درجة دي سما يرو لبا أجرو اسكاليه ودهي رسولك عليه الصلاة والسلام له أجراني مركز محايتهي وحوي لبدا أجرو اسكاليه هاي وحوي أجر وحوك هليا
sababu alqira'a qirada quraanka uu akhrinayo ajirna wuxuu ku helayaa quraanka dhibka uu ku dhibtoohayo maxaa yeelay quraanki waxa weeye musxafkii buu ka akhrinayaa quraanki waa dhibaya waa gifgifaya haddana waa isku kalifaya macnuhu ma ahan waxa weeye ajir oo markaasi ka badan midkii maahirka ahay inuu helayo macnuhu ma maahirka ka fadli badan kana ajir badan maxaa yeelay kaas ilaahay maca safaratil kiraamil bararati halkaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaarsiiyey laakiin midkan oo maaragtay ee quraanka gafaya oo ku dhibtoohaya waxaa la rabaa inuu arintaas sii wado oo gefgefka uu ka baxo ee quraanka uu xifdiyaa loo baahan yahay ana quraanka xoogaa uu markaasi waxa weeye waa ajir waa leeyahay dad waxaa jira oo xoogaa kitaabka haday wax ka jajabsa karaan intaasba aynan hawadoodu dhaafaynin hawadaadu meeshay dhaafi weysaa aad darajadaaduna joogaysaa quraanka waxaa la rabaa inaad maaragtay aad xifdisaa rabaa ood ku dadaasho ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay maalinta qiyaamo qofka markaas rasuulku waxa uu dhahay alayhi salaatu wasalaam ku tagi doono qofka saaxibul quraanka waxaa loo leeyahay iqra wartaqi waratil kama kunta turatilu fi dunya fa inna manzilataka inda aakhir aayatin taqra'uha ayaa loo dhihi doonaa oo waxaa la dhihi doonaa qofka hadii darajada qiyaamo ayaa la koraya xadiiskaas waxa weeye waxa wariyay maaragtay Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ayaa wariyay waana xadiis Tirmidhi leeyahay sanadkiisuna saxiix yahay marka quraanka waxa loo xifdinaa waxay tahay maalinta qiyaamaha waxa la isleeyahay markii darajaadka jannadu darajaada iska leedahay waa ku tagi doonaa oo marka waxa weeye waxa loo dhihi doonaa waxa uu dhahay rasuulku alayhi salaatu wasalaam yuqaalu li saahibil qur'aani qofka quraanka yaqiina waxa loo dhihi doonaa maalinta qiyaam iqra akhri quraanka warqa kor darajadaada quraanka asaa kula buubaaya waratil kala dhigdhig kama kunta turatilu fi dunya adduunyada saad quraanka u kala dhigdhigi jirtay quraanka tartiil waratil qur'aana tartiil al raba la isku qasqasa lama rabo fa inna manzilataka inda aakhir aayati ama fa inna manzilataka inda allah darajada ilaahay agtiisa aad ku helayso waxa weeye aakhiru aayatin taqra'uha aayada ugu dambaysood akhrinayso weeye amba inda aakhir aayatin taqra'uha marka waxa weeye waa la buubaya jannada inta qofkaas quraanka akhraayo inta uu gaaro ayaa jannadiisu ay tahay kii quraanka xoogaa uu labado juz khamiisaad subax khamiisaad iyo labado maaragtay subax yaqiina iyo wax saasa amba juzkoo yaqiinay intaas haduu akhriyo meeshiisoo ku ekaanaya laakiin qofkii maahirka ahay maca safaratil kiraamil bararati waxa loo leeyahay waxa markaasi waxa weeye quraanka inta uu akhraayo waxa weeye jannadiisi baa soconaysa markaas waxa aqliga ka baxsan ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala siinaya marka taas waxay kugu boorinaysaa quraanka inaad xifdiso oo aad xaafid ku noqoto kalaamka ilaahay aad ku dadaasho oo markaas xaafid aad ku noqoto taas loo baahan yahay oo aad waqtigaaga siiso ayaa loo baahan yahay marka hada quraanka midkaas marka waxa weeye gifgifayane asaguna ajir waa leeyahay laakiin waxa la rabaa quraanka xifdigiisa in lagu dadaalo maadaama kutubti hore oo munazalada aheeday kitaabkayna uu ka duwan yahay sharafta quraanka uu iska leeyahay hatta waxa weeye qofka quraanka akhrinaayo oo munaafiq ah ambaan ku amal falaynin oo faasiq ah quraanku hatta waxa weeye markaasi foox ka baxayo weeye laakiin asaga ku khasaaraya xadiis oo marka isagana laga wariyay saxaabiga umuna Aisha oo Abi Musa al-Ash'ari asna laga wariyay waxa dhahay Abi Musa al-Ash'ari nabiga kaleey salaam wuxuu dhahay maalin masalul mu'min alladhi yaqra'u al-qur'ana kama salil utrujati da'muha tayyibun wa rihuha tayyibun waxa dhahay mu'minka quraanka akhraaya wuxuu la mid yahay geeda utrujada la yiraahdo waxa weeye bahal maaratay caraf badan oo hadda maaratay qoloba si u taqaanaahe oo la cuno weeye dacmigeedu waxa weeye waa macaan badan yahay riixdeedu udugeedu waa macaan badan yahay waa mu'minka quraanka akhraaya maxaa yeelay quraanki markuu akhrinayo waa looga intifaacaya midalan bad macalinka quraanka kitaabti maaratay looxdi u meerinaaye ama quraanka u yeerayo oo kaleentood waxa ka baxaya markaasi nuurkaasa ka baxaya waxa ka baxaya wax arfaaya ka baxaya
qalbigiisa haddana oo dayib yahay oo quraanka uu rumaysay oo ku amal falaayo meel kasta ayuu ka fiican yahay fooxaasa ka baxay wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'u al-qur'ana u dhahay mu'minka quraanka akhrin mu'min way iska yahay waa mu'min laakiin quraanka ma akhriyo kama sari tamr timiro kala wada timirta waa aragtay dacmuha daybun rasuulku ha dhadhankeedu waa macaan yahay wala riixa laha laakiin wax uduga ma laha maxay quraanka hadii waxa way iimaankaada dad mu'min ata asaadan quraan akhrinaynin wax ka baxayo fooxa ma laha barafuunki iyo atarki iyo wixii ka baxayaan qofka quraanka akhrinaayo afkiisa saa laga faa'iideysanaya waxa ka baxaya carafa ka baxaysa laakiin qofka mu'minka qalbigiisu dayib waaye quraanka sa akhrimaayo waxa ka maqan markaas caraftii udgoonkiga ka maqan qofka markuu mesela meel aadayo waxa soo qaataa ataro soo qaataa barafuun soo qaataa waa ismariya intaas muxuu isleeyahay riix dayibaha laga helo wuxuu adiga ina ka gudbaan quruxdaad iyo wanaagaaga hal arko isleey munaafiqa oo quraanka markaas akhriyaha rasuulka kaleey salaam munaafiq wa mathalul munaafiqi alladhi yaqra'u al-qur'ana kamathal ar-rihanati munaafiqa quraanka akhriya kuma hay amal falaaye riixaanto kala geedka riixaanta liiraawaay riixdeedu waa dayb waa wanaasante carafay leedahay laakiin wadacmuha murun laakiin dhadhankeedu qaraar weey munaafiqa waxa weeye quraanka buu akhrinaya kuma amal falaayo qalbigiisa khabiis waay ka munaafiqa ahaan quraanka akhriyne kama thalil hanzalati oo dhahay qarad dameeraad waa la to ama qaboob dhurway dacmuha dayibun geedka qaboob dhurwayga la yiraahdo qaboob waraabaha ama samaarata qarad dameeraadka la yiraahdo dacmigiisu waa xaraar wax riixana ma laha sababtoo wax ka baxay ma leh moogta taas marka waxay ku daliil u tahay dadka xufaada fadiilada iska leeyihiin way iyo amsaal in la sameeyo si maqaasida loo cadeeyo marka hadda qaybtii 10 keeni labaado waxa weeye maarataya fadaa'il quraan ku soo qaadanay asagana intaas uu noogu egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.